fanaanada caanka ah ee Hiba Maxamed oo Soomaalidu u taqaano Hiba Nuura ayaa barqanimadii maanta ka soo tagtay geegada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Hiba Nuura oo muddada dalka burburka ku jiray ku noolay dalka dibadiisa ayaa markii ka soo degtay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay fanaaniin mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir, maarayaha tiyaatarka qaranka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo dadweyne kale. Hiba Nuura oo ay ka muuqatay wadinayada iyo xiisa ay u qabtay Muqdisho ayaa sheegtay in isbedel uu ka muuqdo waqtigan gudaha dalka Soomaaliya, waxayna tixsugaana ku cabirtay xiisaha ay u qabto waqtigan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo muddo ka maqnayd. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaalida, khaasatan waxaan salaamayaa gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ee caasimadii Soomaalida ah. waxaan u mahadnaqayaa gobolka Banaadir ee aniga isoo casubay ee dareenkii maalinta maxayay iyo kamaanta kala bedelan labadaba ay tusay. waxaan leeyahay hawadiisii qurxoona dhulkaan u hiloobeen ku hawaawi jiray hiiga ku farxo jacayl baan haya bulshada la halmaalay halkan ku koreen ku soo ana qaaday dareenka yahay mayl maambe karay waa hoygan ku dhashay aabiyo hooyo hiigayga kama baxo haddaan maru neeshino wabiyada haraaciya beerahan ku agayna heeraarka reer Afrika dalka ugu badneere khayraadkooda laga helaaso ariga geela hodanka lood iyo fardaha lagu hubo hore mayne allahayow dal nabad helo wada badan oo haybsada waxaad ubadkeena ma jabay haw hagaagta rajadu dugsiyaal u habeeyo hor ilaahay ku heshiiya hubka dhiga afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay fanaaniinta gobolada waa bari maamulka gobolka Banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan